ciidamada isku dhafaya gobolka Mudug oo kaashanaya taliska qaybta booliiska gobolka Mudug ee dhinaca maamulka Puntland iyo Galmudug ayaa xalay howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka waxay ka sameeyeen halka shaqada ka dhacday ee habeenka hore ee duleedka magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug. ciidamadan oo wato hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ayaa howlgalkan ka sameeyay goobaha kale ah suuqa ariga Darxuma Carraweyne xaafada Buula Bulcley iyo goobo kale. taliyaha ciidamada isku dhafka ah ee gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug Cabdiqani Yaasiin Maxamuud Hanfree waxa uu warbaahinta u sheegay in goobaha howlgalkan laga sameeyay ay hayeen halka ay ku soo arureen kooxaha hubeysan ee qaswadayaasha ah ka soo jeeda Puntland iyo Galmudug kuwaas oo dhibaato ku haya dadka shacabka ee ku nool gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. waxa uu hadalka siintaas ku daray in kooxaha hubeysan ay yihiin kuwa iibinaya waxyaabaha ammaanka dooriya sida qamri iyo xashiishka isla markaasna ciidamada isku dhafka ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan wax kasta oo lid ku ammaanka gobolka Mudug. ugu dambeyntii taliyaha ciidamada isku dhafka gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug Cabdiqani Yaasiin Maxamuud waxa uu u baaqay shacabka magaalada Gaalkacyo in ciidamada ay kala shaqeeyaan ka hortagida iyo soo qabashada cid lid ku ah ammaanka Gaalkacyo wuxuuna digniin u diray ku ka ganacsanaya waxyaabaha ammaanka dooriya qaarkood oo hubeysan. qolyahan qaswadayaasha oo dhibka shacabka iyo ummadda gobolka Mudug ka shaqeynayay oo waxa weeye ay godkii u dambeeyay oo ay ku gabanayeen hadday tahay dhanka Puntland kuwa ka soo jeeda iyo hadday tahay dhanka Galmudug dhanka kuwa ka soo jeeda. meeshaan waxay hoy u ahayd labadii sharwade oo labada dhinac ka soo kala jeeday. waa meeshii ay ku soo ururi jiray waa godkii u dambeeyay ee khamrida iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan lagu gadi jiray oo waayihii u dambeysay ay ku soo baqabeeleeyeen oo ay ku soo carareen. caaway waxaa ka socda magaalada Gaalkacyo operation xoogan iyo gobolka magaalada Gaalkacyo waxa ka socda operation xoogan oo ay sameynayaan ciidamada laamahooda kala duwan iyo ciidanka booliiska. waxa shaqadoodii si toos ah ula wareegay ciidanka isku dhafka ee booliiska. waxa weeye waxaan meeshaan rabnaa inaan uga sheegno shacabka magaalada Gaalkacyo iyo kan gobolka guud ahaan gobolka Mudugba ciidankaas wuxuu la dagaalamayaa waa muqaadaraadka amni darrada wax kasta oo lid ku ah argagixisada dhammaan wax ka reeban ma jiro. ciidanka isku dhafka wuxuu loo sameeyay waxay ahayd xasilintan magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug. waxaan shacabka magaalada Gaalkacyo faranaa inay ciidanka isku dhafka iyo ciidamada booliiska dhammaantood si fiican ay ula shaqeeyaan. waxa loo shaqeynaya waa shacabka. dhowr jeer hore ciidamada ammaanka Galmudug iyo kuwa maamulka Puntland ayaa waxa ay howlgal ay ka sameeyeen qaybo badan oo ka mid ah magaalada Gaalkacyo ayagoona gacanta ku soo dhigay maandooriyo fara badan iyo dadka ganacsanayay. xasan axmed maxamed hirshabelle TV Galmudug.